soo dhawaada barnaamijkeena ciyaaraha maanta waxaan ku soo qaadan doonaa wararka suuqa kala iibsiga kulamadii xalay laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaanada Yurub ayaan barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa hadaan u guda galno barnaamijkeena kooxda Liverpool ayaa xalay la ciyaartay kooxda lagu magacaabo Brentford ayadoo u geysatay xasuuq weyn markii 9 gool iyo eber uga badisay kooxda Liverpool markii qaybtii koowaad ee ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 5 gool iyo eber ay hogaanka ku hayso kooxda Liverpool qaybtii labaad markii dib la iskugu soo noqday ayay Liverpool goolal kala dhalisay ayadoo goolasha ay ka kala heshay kooxda Liverpool xidigaheeda Roberto Firmino iyo xidiga Luis Diaz oo mid 2 gool dhaliyay halka xidigaha Virgil van Dijk iyo xidiga lagu magacaabo Tasimigas iyo Fabio Carafana iyo xidiga lagu magacaabo Alexander Arnold ay goolal u kala dhaliyeen kooxda Liverpool sidaas ay Liverpool xasuuq weyn ugu geysatay kooxda Brentford ayadoo 9 eber uga badisay kooxda Chelsea iyo kooxda Leicester City ayaa wada ciyaaray 2-1 waxa guul ku gaartay kooxda Chelsea sidoo kale kooxda Man City ayaa 4-2 ku badisay markii xidigooda Erling Haaland uu dhaliyay 3 gool halka goolka afraadna ay ka heleen xidiga Bernardo Silva kooxda Arsenal iyo kooxda Fulham ayaa wada ciyaaray iyadoo 2-1 ay ku badisay kooxda Arsenal kooxda Man United iyo kooxda Southampton ayaa wada ciyaaray 1 gool iyo eber waxa ku badisay kooxda Man United kooxda Juventus iyo kooxda Roma ayaa barbar galay halka kooxda lagu magacaabo Bayern Munich ayadana barbaro lagu celiyay wararka suuqa hadaan u guda galno kooxda Liverpool ayaa wali raacda ugu jirto xidiga United lagu magacaabo ayadoo doonaysa inay ku soo darto qadkeeda dhexe maadaama ciyaaryahanada dhowr ay dhaawac uga maqan yihiin kooxda Liverpool sidoo kale xidiga kooxda Manchester United ee lagu magacaabo Martial ayaa heshiiska loo kordhi karaa kooxda Manchester United asagoo waqti dheer sii joogi doono garoonka Old Trafford ee ku ciyaarta kooxda Manchester United sidoo kale heshiiska ay kula jirtay kooxda Barcelona kooxda Chelsea ayaa fashil ku soo dhamaaday markii kooxda Chelsea ay ku fashilmatay inay qaadato xidiga Aubameyang ayadoo haatan ka raadsanayso xidig kale oo bedelkiisa ah kooxda Chelsea xidiga Aubameyang lagu magacaabo kooxda Juventus ayaa si rasmi u qaadatay xidiga Benitez lagu magacaabo ayadoo laga yaabo inay maanta u soo bandhigto warbaahinta si rasmi ah sidoo kale wararka suuqa waxaa ka mid ah xidiga lagu magacaabo Antonio ayaa wali raacda ugu jirto kooxda Liverpool ayadoo doonaysa inay ku soo darsato qadkeeda dhexe maadaama ay ciyaaryahanada dhowr dhaawac uga maqan yihiin ay haatan xidiga dhowr ka doonaysa suuqa kala iibsiga kooxda Liverpool ayadoo hore u sheegtay inaysan suuqa ka doonaynin ciyaaryahanada ayaa hadda mar kale macallin Klopp sheegay inay xidiga dhowr ay ka doonayaan intuusan xirmin suuqa kala iibsiga sidoo kale wararka suuqa waxaa ka mid ah Bernardo xidiga lagu magacaabo ayaa doonaysa kooxda Arsenal inay safkeeda ku soo darsato fadlan haday tahay markii kugu horeysay aad soo booqato YouTube-keena xogta ciyaaraha dunida fadlan subscribe inoo saar gambaleelkana furo si ay ugu soo dhacaan wararka ciyaaraha soo galina